بسم الله الرحمن الرحيم ودكتور عبد الكريم أحمد محمود كنا تخصصي خلينada iyo daweynta cudurrada haweenka waxaan jecelahay inaan maanta idin la wadaago arrin aad iyo aad muhiim u ah. waxaan arkay haweeney la qalay bilo yar kadibna uur ku soo qaaday kadibna ka walaacsan caafimaadkeeda oo ka fikiraysa inay ilmaha iska soo rido ama ay iska soo tuurto amaba laga soo xaaqo. sida awgeed waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago keebaa khatar badan in haweenaydu ay ilmaha iska soo rido iyo in uurkeeda uu sii jiro oo uu bila dhammaysto kadibna qaliin ay ku dhasho. khatartu waxay ku badan tahay inay ilmaha iska soo rido, waayo waxaa dhici karaya inay dhiig baxdo, waxaa dhici karaya in minka uu dilaaco, waxaa dhici karaya dhibaatooyin aada u badan. intaa waxaa sii dheer, diiniyan ma banaana ilmo nool oo uurjiif ah in la soo rido, oo waa dembi aada iyo aada u weyn. sida awgeed fariinta ha la gaarsiiyo dhammaan dumarka la qalay ee bilo yar uur ku soo qaaday kadibna ka walaacsan caafimaadkooda oo ka fikiraya ilmaha inay soo ridaan. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.